shir loogu arinsanayo amniga gobolkani waqooyi bari ayaa ka dhacay hotelka London ee magaalada Garissa. Shirkani ayaana waxa soo qaban qaabiyay governorka Garissa Ali Bunu Qorone waxaana ka soo qayb galay dhammaan mas'uuliyiinta laga soo doortay ismaamulkani Garissa, waxgaradka magaalada Garissa iyo walibana khubaro ku xeel dheer amniga. Governorka Garissa Ali Bunu Qorone oo ugu horeyntii ka hadlay ujeedada shirkani ayaa sheegay in dhibaatooyinka amni darro ee soo noqnoqday ee ka dhacaya qaybo badan oo kamid ah gobolkani waqooyi bari ay diyaar u yihiin inay tilaabo kama dambeys ah ka qaadaan si loo xaqiijiyo xasiloonida shacabka oo hadda cabsi badan ay ka muujinayaan weerarada isdaba joogga ah ee alaababa ka dhaco deegaanada gobolkani waqooyi bari. hadda maanta meesha intuu aan gaarnay inaan la dagaalno isku cilin ayagana gaarsiin ayagana dhaga way u qabaan meel ay joogaan inta day joogaan meel kale joogaan marka annaka hal ruux oo baqay oo yiri niman kaleeto aan iska dayno waan ka baqaynaa ma jirto marka taas waan meel marinaynaa waxyaalo badan ay ku taliseen in police reserve la xoojiyo ciidan inaan hagaajisano dadweynaha in la hubeeyo waxay dhanayd wax ma ka soo saaraynaa arrinta cilmiga ayadana iyo macallimiinta waa aad baa xoog loo saaray inaan dawladda ka ogaano wixii annaka naga mid oo xagga ku jiro marba nagu dacweeyaa annakana waan aqbalnay in annaka xagga uu ku jiro waxay dhan yihiin ma sheegi karno dawladda inay ogtahay wixii ay nagu dhaanto oo khabar oo ay ogtaho annaka aan ogeyn inay noo sheegto annakana aan ka tashano dadka ayaga isaan uga soo bixin lahayd meesha ayaday ku jiraan waxaa weelisaa kuwaas markii aan doonayno kuwii nala joogay baa laga yaabaa inay meeshaasi ay u socdaan hadda kuwan meelaha warwareegayeen oo 12 bay ahaayeen laba keliba yaa Soomaali oo dadka kale waxay ka keeneen meelo kale ilaa waxay yihiinbo waa in carruurteena ka reebnaa inay nimankan ay gelin wixii ku jirnaan ka soo bixino. dhanka kale mas'uulka laga soo doortay deegaanka Dadaab Dr. Dahiya Ducaale ayaa isna dhankiisa soo hadal qaaday in xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya la furo taasina ay qayb ka qaadanayso in la ogaado cid waliba oo ka soo gudbayso xadka labada dal. waxaan codsanaynaa dawladda Kenya in xadka furto borderka in la furo sababta ay tahay borderkan wuu xiran yahay laakiin wax xiran ma jiro dad iyo maal way soo maraan waxaan rabnaa dawladda in borderka furto meelaha loogu talagalay inay dadka ay soo maraan wixii barnaamij wax kasta taas ayada waxay aad u caawini amnigana way caawin saboolnimadana wax bay ka qaban dadka ka barakacayaan wadankana way ku reebi hadaan waxaan leenahay ciidankeena Kenya waxay ku jiraan Soomaaliya laakiin shabaab way soo doomaraan shabaab waxay nala joogaan Garissa iyo meelo kale oo ka sii waxaan codsanaynaa dawladda Kenya anagoo hadda dhehna kuwa ha soo saaraan laakiin ciidankeena in loo kordhiyo xadka xagiisa oo maaragtay ay sida ay uga shaqeyn lahayd in nala soo gudbin waxaan codsanaynaa dawladda Kenya jidka qaarkood jid jilaabay noqdeen in ayagana la hagaajiyo sida jidka u dhaxeeya Dadaab iyo Liboyo muddo 3 sano waxaa ku dhimatay 63 nin oo askar oo tababar runtii waa arrin naxdin. waxaa isna goobta ka hadlay mas'uulka laga soo doortay deegaanka Faafi Cabdikariim Cusmaan Rati waxauna sheegay markasta oo ay dhibaato dhacdo in dawladda ay shacabka ku eedeyso in ay wax ka og yihiin iyadoona dhibkani uu saameeyay shacabka. dawladdan waxaa muhiim ah horta inay ogaato Soomaalida Northeastern inay Kenyan yihiin ma aaminsan inay Kenyan nahay sidaas waa shaqeynaa horta maxaa rabnaa midda koowaad in ogaadaan inaan Kenyan nahay waddankan xaq u leenahay Kenyan aan nahay waddankan u dhalanay dawladda waa inay qaataan suxurti weyn qaataan waxa uu jirtay hadda markii laga sheekeynay mar dhaxda hadda noo badaaday ninkii ka dhaarto markii aan u tagay nimankii u tacsiinay gaalada la macallimiinta laakiin muddo weynay ilmihi waa weynay ninkii arsiga la xulay laakiin muddo wax kale marka meesha tay ilmihi waa weynay bilcaanta waa weynaysa duqeyda waa weynay niman fiican baa naga dhinteen baliye معلمين تعبان دمتاني دولة الوحيلة هاي أنا أصحاب غرنينا وحاجة وجدت سرايو ما كي جوين 6 حويل بالودري
ومحمد سويق إسحاق صدق هذا الشيء هالناك يهال ضغط عليه سومالي سو مسلمه مركا الشباب مسلم يقال مثلا يرنيسو الشباب يوجد حواي لو كان نجا دت كان نجا دب كان أنا ولا عارف ذني شاني اسكولها هذا وحريه عافمات وحريه جد كلا مركا لو حل كلم بلايا مركا الشباب تن هذا الله وكبرت إلهي أنقرنا نسيء أيه أمسك كلا إلهي أنا عدينه أن بحنه أسكعلنه deegaanka Faafi ayaa isbuucyoon ka horeeyay ahayd markii dablay weerar ku soo qaaday ay ku laayeen macallimiin ajaanib ah oo ku sugnaa deegaanka Kamuudi oo ka tirsan ismaamulka Garissa iyo khasaaro loo geystay xaruntii caafimaadka ee deegaankaasi Kamuudi. ugu dambeyntii shirka ayaa ku soo dhamaaday jawi nabadeed iyo sidoo kale tana governorka ayaa sheegay in waxyaabaha ka soo baxo ay ku lafaguri doonaan iyo walibana in ay talaabo degdeg ah ka qaadi doonaan falalka amni darro ee alaababa ka dhaca gobolada waqooyi bari. Cabdi Casiis Siyaad, Kulmiye TV, magaalada Garissa.